السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوار القناة كنا ما أنتوا حنكحد للدونا إن شاء الله تعالى. عقبتها كو إيمان كرا محنون ده الله سودرس كرا هواي ده أنت أور كلا ده هاي. إلهي هواي كستو أور له أفوضيو. إلهي إنها كبد باديو وحيا بهاسي. أنت من هي سنين وبدنا الله سي وبد باريالا أنت ستان الله وبركايو. ما أنتوا حنكحد للدونا سهرون كوش شاقناي عذرها لسه أو كو إيمان كرا هواي ده. xilliga ay uurka leedahay waxaase la gudboon hooyada hadday isku aragto waxyaabahani inay la xiriirto dhakhtarkeeda. First waxaa ka mid ah hooyada inay la soo daristo anemia. Anemia waxyaabo fara badan ayaa hooyada u keeni kara waxaana ka mid ah hooyada oo aan helin cunto isku dheelitiran ama waxyaabaha ay iron ku badan yihiin. Sidoo kale hooyada ma ahan sideedii hore waxaa ku nool qof kale ayaa dhexdeeda ku nool. marka waxaa loo baahan yahay inay dhankaasi iyo ironta hooyada aad uga fakirto insha Allah taala si aysan ugu dhicin anemia ama dhiig yari. laba waxaa ka mid ah waxyaabaha ama cudurrada soo wajihi kara hooyada intay uurka leedahay urinary tract infection ama caabuq ku dhaca marinka kaadi mareenka. infection kaasi hooyada wuxuu u keeni karaa inay noqoto hooyada uncomfortable mid aanan deganeenin maxay haytood sidoo kaleeto calaamadihiisana waxaa ka mid ah gubashada inay gubto kaadida oo kaleeto xilliga ay suuga isticmaalayso. waxaa ka mid ah qoyaan oo kaleeto waxaa ka mid ah cuncunka oo kaleeto. sidoo kale waxyaabaha hooyada la soo dirsi kara intay uurka leedahay waxaa ka mid ah mental health condition. sidoo sajaas waxaa ka mid ah inay hooyada isbedesho appetite-keeda oo appetite xumo ay aad ugu dhacdo. sidoo kale waxaa ka mid ah inay hooyada noqoto mid iska dansan oo kaleeto moodkeeda oo low yahay. waxaa loo baahan yahay hooyada inay noqoto hooyo firfircoon, hooyo maxay haytood maskaxdeeda fresh ah, hooyo aanan buuq ku furnaynin. waxay haytood mental health-gaas wuxuu imaan karaa laba jeer oo imaan karaa hooyada markay intay uurka leedahay mentalkaas wuu ku dhici karaa hooyada markay dhasho kadibna wuu ku dhici karaa mentalkaasi. sidoo kale waxaa ka mid ah hypertension-ka ama dhiig karka. dhiigarkan wuxuu sababi karaa hooyada intay uurka leedahay hadoo ku dhaco Allah naga haye preeclampsia ayaa uu sababi karaa eclampsia hooyo kalaamis inay ku soo boodo oo kaleeto sidoo kaleetana ama cunug oo ka dhinto Allah naga badbaadiyo insha Allah taala. sidoo kale waxaa ka mid ah diabetes-ka ku dhaca hooyada intay uurka leedahay. sokortaani waa halis hooyada intay uurka leedahay waxaa jirto hooyooyin ay ku dhacdo intay uurka leeyihiin kabacdina way iska tagtaa laakiin waxaa maxay haytood caqabad weyn waaye hooyada hadday iyadoo uur leh ku dhacdo diabetes-ka ama sokorta waxay sababi kartaa hooyada in degdeg loo qalo si loo kala badbaadiyo. waxa ugu adag waa hypertension-ka iyo diabetes-ka.